هذا isbitaaladii waagi hore Talyaanigu dhisay very strategic meel kasta oo laga dhisay waxaad moodaa yani dadkan waa waxbay hadda iska dhigay tourism wax ka dhisay hadda iska jecel laakiin isbitaalada lagu dhisay sida strategiga mashaariicda lagu dhisay strategiga baahidoodu waa caddahay mar walba saasayna u waaraan oo aysan u hakanin kuwa badan oo la sameeyo iska burburay baa jira oo qorshe la'aan loo dhisay iyo caadifad dabcan gaalkacyo وأبعد الصومالي مال آد مهم دول آد وباحد وين وسكورك سنة أو دنا والبا سنتر كان إنه نقول سنتر دنا عافمات صدقوا أيوه مرة كلا تبغى روتي الصومالي بنت اللام مهم بيوتها شرفنا روتي عسبتالada wax dhibaatada naga haysta referalka ama secondary isbitaalkan hadda wuxuu tiigsaday inuu dhaafo teaching hospital noqdo runtii iyada naftirkeeda waa wax aad loogu farxo oo challenge-gaas ku saabsan in dhakhaatiir soo baxdo oo gudaha qofku marka uu digrigiisa koowaad ku qaato aad u muhiim u tahay maxaa yeelay bulshadiisu fahamsan yahay uu hadhow la shaqeynayo dadka meelo kaleeto lagu tababaro waxa laga yaabaa bulsho kale iyo baa loo diyaariyaa iyo qaab kale u handal gareynayo kiisaska لأن قفك الصومالي كتب برتو وكتب برنايا دتكيسة هي دقن كودا أيات صديقة مركا كنت دتك النوع عاسة إن أقوم تذكر لوقاده هلان مال أي تبر في عن أي كهلان أو براكتيكال هذه مهم تهاي جالن جيجاس كسافر سي أقوم تذكر لوكب علها أو جيلش يسوب بدل هاي برودكشن كو وإنه سنستاجل الله ونحرس محمد جامع هذا وأنا مقلنا إنه جوردو ديتي ومدرب كنتي أها leading role Somali خاصة دول كامبا سيدا سوكلتا جيل بجيل إنه بدل لكن إن سلطان ودي أرسين هي أرماس وولي وصلكو كان البنت لانا هرجيسة حمر لقى إيمانا حلقة تبر الوقع لنا كنتي وحوي سؤال شمناش تعالى وحوي فهذا أنت على هدول ليه وحيوبها أنت إن لك إن الضباط باهيس علد أقوين وبنت لنا يسفتوح ودنا أود الدقالة budget كانوا very limited وحياه بدن وباهية ودك أباهين مكبر جرينك لكن وحلا غير روا وزارة iyo maamulka isbitaalka inuu u diyaar sanaadaan inay receive gareeyaan dadka raba inay wax ka qabtaan waxaan ognahay dad fara badan oo raba inay dalkeena wax ka qabtaan dhibaatooyin ugu yimaada dadkii localka ay la shaqeyn lahayn darteed inay aan u sheegno oo idinka naftirkiin experience badan baa u leedihiin dad fara badan ama hay'ado fara badan oo wax qaban lahaa oo loo sahlo sax mararka qaarkood requirement-gooda wataan iyagaa wax wata laakiin mar haddaad adigu محتاج tahay nin walba u baahan tahay waliba nin walba intuu u baahan yahay inuu qabsado haddii aysan qorshaha guud aysan ay khaldan sidaas dabiiciga ana waxa weeye haddii markaaga hore preemptive markaaga hore hadda plan leedahay xataa cidda kuu imaanayso inta badan waxay u badan tahay inay ku weydiiso plankaaga laakiin mararka qaarkood hadda inta adiga lagu yimaado aad wax qorshe aad hordhigin qofku waxay la tahay markuu sameeyo haddana inaad dhaliil ka keentid sax ma noqon doonto haddii la haydo waxaan u baahannahay marka lala kulmaayo mar walba cid walba inuu qorshuhu diyaarsan yahay baahiyihiisa sida u kala muhiimsan yihiin haddii xataa mid qaban way ku adkaato hay'adaha waad ogtihiin oo mandate bay leeyihiin eriyooyin wax ka qaban baa jirta mid walba area wax ka qabataa mid baa dagaalada iyo waxyaabaha dadka burbura ka qabata mid baa carruurta rabta marka mid walba waxa ay rabto in lagala shaqeeyo aad dibmid dabcan wasiirkiina waa inay yimid xukuumaddan waxaa ka go'an inaysan centralized noqon oo wax walba aanay ugu xirnaanin qodobkaas waa muhiim wasaarad kasta inay functional noqoto danaheeda qabsato baahideeda ay ka turjunto madaxtooyaduna waxay leedahay in ay siday wax u qabanayaan inay controlsho oo wixii khaldama ay iyadu saxno dabcan hawshaas ilaa hadda xukuumadda xubnaheeda wasiirada aad baan ugu mahadcelinayaa shaqadooda si decentralized u qabsadaan annaguna runtii wixii tala
ay gaaraan report bay noogu keenaan wixii ku cuslaadaan way noola soo noqdaan annaguna weygeenna aan ku kontroolno sidii loogu talagalay plaanka iyo qorshayaasha ay wasaaraddooda soo degsatay sidoodii ma u fuliyaan ayaa muhiim qodobka runtii wasiirkuna hadda sheegay retreatkii golahana ka soo baxday waxaa ugu muhiimsanaa in secondaryga xoog la saaro maadaama primary health care-ka ilaa xad puntland ay marka loo fiiriyo soomaaliya ay meel soo gaartay oo runtii goobo aad u fara badan oo meel walba ah ayaa waxaa ka jira mchyada iyo health postiyada iyo waxaa aad u dhaqaaqay laakiin referral hospitalisku aad bay ay maaragtay u tayadaran yihiin kan gaalkacyo at least gobol kasta inuu one referral hospital u yeesho oo weyn sida magaalooyinka u kala weyn buu xajmigood usii kala weynaan doonaa haddii ilaahayno dabcan populationka ugu badan ee puntland waa gaalkacyo iyo boosaas marka inay labadooda ay noqdaan meelo maaragtay referral hospital muhiima iyo kan garoobo oo isaguna baaxad aad u weyn oo hadda khaasatan sool iyo meelaha inta badan ayn puntland gacanteeda ka maqan laakiin dadkeedii ay weli ku xiran yihiin deegaanka oo gobolka nugaal culays ku ah caasimadiina maadaama ay tahay dadaalkaas iyo qorshayaashaas wuu socdaa professional haddaad noqonaysid markaaga horetaba waxaa la rabaa professionkaas jacayl umuusan gelin sida muuqanaysa marka waxaa la rabaa inaad highly profession noqotaan dadkeenana inay gaaraan qof walba in fiilkiisa lagu ixtiraamo shaqooyinku ma kala fiicna laakiin way kala duwan yihiin intaasay aada u mahadsantihiin DMI